suugaanta Soomaalida iyo halqabsiga xayawaanada. Heesaha waxaa ku jira marar badan halqabsi lagu halqabsado noolaha aan dadka ahayn ee sida xayawaanaadka kala duwan. Maanta ayaan iswarsanaynaa horta daa'uuska marka lagu halqabsado maxaa loola jeeday. Aan ugu horeyno heesta daa'uus ee uu leeyahay abwaanka Xasan Xaaji Cabdilaahi Xasan Ganey, caafimaad iyo cimri dheer Allah siiyo. heesta oo ay ku luuqeeyaan Sahre Axmed Jaamac eebaha u naxariistay iyo Xasan Aadan Samatar. wuxuu noola daawado daa'uusku waa kow ogow quruxna loo daa, isagana qabbaa dilay waxaa loogu dawgalay nabar aan dawo lahayn. dad badan ayaa isweydiiyey nabarkaasi wuxuu yahay oo muddo badan ayaa laga dooday. nabad dadweyne soo dhawaada dhambal dhigta ama haddaad doontaan gambarkiinaba soo qaata. waa biladay ha lagu sheego ama ha laguu sheege, maantana waa ha laguu sheego. qaar baa yiri daa'uusku waa noole isla qabweey oo iscajabiya, balse wuxuu nabar ku leeyahay gadaasha oo markuu baalasha fidsado oo uu quruxdiisa iscajabiyo ayuu nabarkaasi xusuustaa amba uu arkaa, deetana uu naxaa. markuu eegana wuu qabjabaa. hase yeeshee baaris aan sameeyey ma arag biology ahaan nabar la sheegaya oo gadaal kaga yaal daa'uuska, balse waxaa jira aragtiyo ay isla qabaan dhaqamo badan oo kala duwan. in marka uu baalasha fidsado daa'uusku ay dadka hortiisa joogaa arkaan qurux aad u weyn, balse inta gadaal taagan ay arkaan meel eber ah oo aan qurux badnayn baalasha hortooda oo kale. sidoo kale ayay qabaan dhaqamo badan oo kala duwan inuu yahay daa'uusku noole ka tarjuma inaysan jirin wax dhammaystiran. sidoo kale waxay yiraahdaan quruxdiisa faraha badan waxaa dhulka ku jiida oo hintiisa ayaa aad u xun. cod xun buu leeyahay, sida shimbiraha kalena uma heesi karo. tilmaamaha kala duwan ay ka bixiyaan daa'uuska dhaqamada adduunyada ayaa kala ah. hinduuga waxay la xiriiriyaan daa'uuska ilaahooda murtida Saraswati iyo ilaahooda Krishna oo ku baashata baal daa'uus. waxaa ka mid ahayd qoraalada qadiimiga ah ee hindida. daa'uuska qoobka cayaar ayuu sameeyaa marka uu roobka da'ayo, balse waxa uu aad u baroortaa markuu lugihiisa eego. gariigtii hore ayaa qaba codka iyo luuqda daa'uuska uma qurux badna sida quruxda markuu baalasha fidsado. masiixiyiintii qarniyadii dhexe ee Yurubta ayaa qabay daa'uuska waa sumada qabka oo ka mid ah 7 dambi ee waaweyn. farisiyiinta iyo dhaqamada qaar ee muslimka ayaa qaba in daa'uusku uu khiyaanay ama uu sirsirtay ibliis ama shaydaan si uu jannada u dhaxgeeyo. taas daraadeedna waxaa lagu abaalmariyay daa'uuska in jannadiina laga soo eriyo oo dhulka lagu soo tuuro. quruxda baalashiisana waxay u tahay daa'uuska xusuustii jannada. lugihiisa xiitada ahna dambigii uu galay iyo jabkii ka gaaray in laga soo saaro jannada. dhaqanka Jabaaneeska ayaa u arka daa'uuska naxariis iyo awoodda isbedelka iyo kartida isbedelka iyo u bedelida sun iyo dhibaato qurux. dhinaca kale waxaa jira heeso gabdhaha lagu ammaanayo daa'uus la moodiyey. waxaa weydiintu tahay abwaanadu ma dhinacyo kala duwan ayay ka arkaan daa'uuska. waa biladay hanaga herine nasoo raac.